cunitaanka timirta waxay tusinaysaa lu yiri quraanka kariimka akhriskiisa ma sha Allah timirta cunitaankeeda qaaliban waxa loo yahay si guud ba risqi wa si guud cunitaanka timirta waa risqi wafiir waa risqi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala akrami khalqillah sayyidina mawlana muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in ba'd wa barnaamijkeeni fasalka ruyooyinka waxaan soo qaadanaa insha Allah ta'ala ruyatu tamri fil manam aragtida timirta ayaa maanta baran doonaa haddii alla qadaro qofka hadduu riyoonayo wuxuu ku riyoodaa waxyaaba fara badan waxyaabaha la arkay waxaa ka mid a timirta oona la soo weydiiyey oo saaka u dambeysay daawadana soo weydiiyey timir uu ku riyooday isagoo cunayo haddaba marka ciwaankaas oo aragtida timirta ah ayaanu baran doonaa insha Allah wuxuu leeyahay taabiciga weyn ibnu siriin calayhi raxmatullah qofkii arka isagoo timir ku riyoodaa رؤية التمر تدل على العلم والإيمان والرزق النافع الذي يدوم ما شاء الله تمرتا waxay tusinaysaa cilmi iyo iimaan iyo risqi ma sha Allah cilmi naafic ah iimaan iyo risqi weyn ayay timirta tusinaysaa aragtideeda wa aklu tamri fi lmanaam cunitaanka timirta oo qof asoo timir cunayo oo ku riyoodo manaam oo ku arkayo bishaara وبشارة أخرى وقفك أركا أطهي في البركة في ماله وأهل بيته مال كيس بركة أطهي أي أهل كيس بركة أطهي ما شاء الله دي قفك كوريا صوت برعنايو مال كيس إلى بركانا يا أهل كيس إلى بركانا يا وبركة أطهي بشارة وين سيدو كل قفك أركا تمر عانك عنايو تمري عانو صدر صدي سيدو سكوريا ذي فهو مال مجموع ورزق وفير ومال كورنسان وقف كاس إلى سينايو مال فربنا الجداي يرزق وين وقف كاس إلى ما شاء الله سيدو كلو حيوان لو فسر تمرتها سيدنا ورته خير واحد أيه وحيوان لو فسر حكم إذا مركز سيدو كله ما شاء الله أكل التمر لو فسرها على قراءة القرآن الكريم القرآن الكريم في آخر كيسنا لو فسرها تمرت وحسالمات تمرت محتاج صنعها محتاج وحشي ونسنا والنبي أوجع عليه الصلاة والسلام العنتوينك كون النبي ونعبا صلى الله عليه وسلم كون وجع لها مركو وحي النبي ونعبان وكرهين غنايان وحي النبي صلى الله عليه وسلم وجع لنا وحي غنايان سنن غنايان تمرت وحي ورسا مركا عنتوينك ونبي نجع لها عليه الصلاة والسلام فأكيد سيكو كتهي تمرت وانا الصنو وإلا قرآن كريم كجر تابع إن الله يقدر دارمي مريم بنت عمران رضي الله عنها مركا عمرتان كتمرت وحي تسنى سالو يري قرآن كريم كأخرج كيسا ما شاء الله sidoo kale timir wanaagsan ee timir idaa kale wanaagsan timir mid waxaa jirta oo wanaagsaneyn oo dhacday oo bahalo leh iyo mid wanaagsan oo qurxoon ay jirto midda wanaagsan marka timirta wanaagsan cunitaankeeda waxaa lagu fasiraa khayr weyn oo qofka uu helayo ee lagu fasiraa liqowli rasuul sala allahu alayhi wasalam atamru xalaawatu liimaan timirta waa iimaanka macankiisa timirta cunitaankeeda maal ay lagu fasiraa sida badan risqi lagu fasiraa inteeda badan ما شاء الله تمرت عنتان كذا غالبا وحلو ياها سي جود بورزق هو سي جود عنتان كتمرت ورزق وفير ورزق وين ما شاء الله تمرت أرتي وبركة وأنا رزقي وأنا عافيمات وقفك عنايو وهلايو لا تمرت عافيمات يعني عافيمات اللي هلا سيدو كلنا رزقي وحقي لك إيمانا يتسنى ساعة تمرت قفة كل يوم وصوت تمر عنايو رزقي وك إيمانا وحقي إلهي ayaa lagu fasiraa ma sha Allah haddii qofka uu arko isagoo qof kale siinayo timir ayuu ku riyooday qofkaas macruuf ayaa jidkiisa uga imaanayo macnaha wanaag ayuu jidkaas qofkaas uga imaanayo hadduu arko qofkaas timirsa siinayana sidoo kale sina qofka wax siiyey ayuu khayr ka helayaa wanaag u ka helayaa ma sha Allah qofkii arkaa isagoo timir cunayo weliba suxuurta رمضان كأسوأ تمرك سحرنا أيوة كل يوم ما نام كارك وزيادة في الدين والتقوى ما شاء الله وزيادة والدين تأه يقولك عفسك وتيسير في الأمور يعرمها الله فوضي ولا تيسيرنا أيوة سيدا وكلا هدي غفا كل يوم سوى تمرك أفرايو وكل يوم إذا حل أفرا للجوجو تمرنا وكو أفرايو تيور سحر بيت إنه على رزق يأتي بعد التأخر رزق إيمانا يدب لا كذب رزقي وهلي دونه أين لو فصل يا ما شاء الله
isagoo timir muusonayo qofka kuryooda timirta soo muusonayo ayuu isagoo muusanayo ay ka wadaa oo kuryooda khayr oo helayo qofkaas ayaa lagu fasiraa khayr oo helaya ma sha Allah cunitaanka timirta soo kibis soo timir ka cunayo ama moofo ama rooti ama canjeelo soo garanaysidba soo timir ka cunayo ay manaam ku arko kuryooda qofkaas waxaa lagu fasiraa waa xaajo oo qof kale uu gudayo nafcigeena uu heli doono qof hadan u guday qofkaas nafci ka heshay ka helaysaa soo caano timir ka cunayo arkay waa risqun xalaalun طayibun mubaarakun fiih waa risqi xalaal ah wanaagsan barakeysan oo la barakeeyey allahu akbar timirta cunitaankeeda waa risqi oo qofka biduuni tacab uu ku helayo ma sha Allah haddii qofku arka isagoo cunayo timir xun marka timir oo faasida oo wanaagsaneyn isagoo cunayo ku riyooday waa fa kalimatun xaq yurad biha albaatil biha baatil waa kelimada xaq ah oo loola jeedo baatil qofka macnaa kelimada xaq oo ka hadlaya laakiin muxuu la dalinayahay baatil oo la dalinaya ilaa maxaa wanaagsanahay timirtii laakiin faasid bay noqotay waa sidaas hadduu arka qofka isagoo timir oo tarxi ka buuxo cunayo wuxuu banaan ku arkay timir oo duud waa tarxii ka buuxso cunayo ayuu manaam ku arkay ama aafo ah waxaa leeyahay marka waa qofkaas waxaa lagu arsaaqayaa maalan xaye xalaalan waa maal xalaal qofkaas la sii doono yaatii min camali maca shaksin maalu xaraam waxaa u imaanayaa qof macnaa qofkan wuxuu cunaya oo helayaa maal horta xalaal ah ee la siinayaa laakiin maalkaas xalaalka waxaa uga imaanayaa camal uu la qabtay shaqo uu la qabtay qof maalkiisu xaaraamiya macnaa qofka la shaqaysanayey isaga ninkan maalkiisu waa xalaal laakiin qofkaas kale maal xaraam ah la yimid ninkaasi ma oga samaa marka si dembi kuma lahan marka waa laakiin risqi maxaa ku jiro waayahay maalkan qofkii kale maalkiisi oo xaraamka ayaa ku jiro waa timirtii marka oo tarxiika buuxo kale waa saas lagu fasiraya allahu akbar culamada khayr allah sii aad bay u dadaaleen waxaa kaloo kamid a leeyahay timirta cunitaankeeda aad ayaa uga soo sheekeenay haddii qofka ku riyoodo isagoo cilaaj ahaan ama daawo ahaan timirta cunayo ila timirta waa la isku cilaajiyaa waa la isku daaweeyaa timirte daawo ahaan isoo timir cunayo ku riyooday qofkaas uu caafimaadayaa biidni illahi ilaa idinkiisa qofkaas uu reesanaya uu bogsoonayaa uuna ka boodaya haddii qofku arko isagoo timir sameynayo khamr ayuu timir ka sameynaya qofka risqi xalaal ah ayaa lagu arsaaqaya laakiin yasrifu fi baatil meel baadil u geenaya qofka meel baadil ayuu maalkii u leexinaya ilaa timirta wuxuu ka sameeyey khamri ma xaaraan bu ahay ilaahay xaqiiqada og marka timirta si guud baa lu yidhi ninka oo mutasawijka ninka guursaday xaaslaha haddii timir oo ku riyoodo waa barako xagga maalka iyo xagga ciyaalka barako u tahay haddii sidoo kale ninka oo nin oo shaqaysta u yahay oo camal ku jiro oo manfaco oo gaari doono camal wanaagsan oo gaari doono ayaa lagu fasiraa hal timir cuntaankeeda oo qofka waxay u tahay khabar saciid ah uu maqli doono ma sha Allah ninka hadduu ku riyoodo timir isagoo cunayo waa ninka xaslaha waa sacaado oo gurigiisa liibaan gurigiisa heli doonta gurigiisa oo liibaan ka heli doonaa gurigiisa barwaaqowi doono camalkiisa risqigiisa kulli baraka ayuu ka helayaa ma sha Allah qofkii doobka ahaa in gursan hadduu ku riyoodo timir ku riyoodo waa sumcad wanaagsan oo dadka dhexdooda ku dhex leeyahay ama calaa qurbi zawaajihi gurigiisa soo dhow waliba min fataat xasana gabar wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan leh oo sumcad wanaagsan leh ayaa guursan doonaa saasaa lu leeyahay ma sha Allah ninka yar waliba dhalinyarada ah ama awla guursan hadduu ku riyoodo timir soo qaadanayo bishaare u tahay bishaaro khayran lahu bitawfiiq fi camalihi waafajin xagga shaqadiisa la waafajinayo ayay u tahay ka qaadashada timirta meyd qofka waxaa ku riyooda timir qof dhintay soo timir ka qaadanayo ayuu ku riyooday waliba nin guursaday xaaslaha arkay yadulu calaa farjin qariibin khuruuj min maxni faraj dhow ayaa lagu fasiraa iyo qofkaas mixnada ku jiray ka baxay mixnadaas lagu fasiraa laakiin timirtaas siinta oo qofka siinayo nin ayuu timir siinayo ku riyooday qofkaas wuxuu u gudbinayaa saacido ama zako bixinaya ama qofkaasoo taageero u fidinaya wallahu aclam haddii qofka loo soo hadiyeeyo waa rajul mutasawija waa nin xaaslah waxaa loo soo hadiyeeyey timir waxay tusinaysaa maqlidda kelmad wanaagsan ayaa lagu fasiraa haye qofkii ku riyooday xaaskiisa oo timir ay siinayso wuxuu arkay xaaskiisa iyadoo timir siinayso manaamka hore ku riyooday waa xaaskiisa oo naseexinayso naseexa waliba naafica
وأنفعيسو أما مالي أهان كتاجريسا وككالمينيسا حق العقد كتاجريسا مركا الصوت وضوبه تمرت سياد أصوش يعني كوي هذا ثوانا سنين ما هاني من فاسدة من الحلال ما هاني يا أنت كل تمرت واشي وناكسن وأنا رزقي أبنت يدينتي يوم البركة يوم بركة دن عم ميسا هالكذا سوق قلنا إن شاء الله تعالى برنامج كان معان كان ما أنتوها على تمرت وبالله التوفيق السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.